oo mudan sida kuwa kale loola dhaqmay in loola dhaqmo way dunida imika waxa sameeyay xanuunka COVID-19 oo imika 3 sano la soo dhaafay wuxuu ahaa issue ugu weyn adduunyada dhan laga hadlay marka xoolaha iyo dadka laga hadlay COVID-ku xoolaha ma saameeyay hortay COVID-19 waxa keena nooc loo yaqaan virus isu tago SARS mastula waxaana lagu daraa inuu yahay xanuun zoonotic disease xanuunada uu kala gudbo dadka xoolaha inkastoo adigu ay yiraahdaan markii hore xanuunkan wuxuu ka yimid markii hore xoolaha oo fiidmeertu ka yimid la iskuna hayo inuu adigu dadkana qaarkoodna aaminsan in aragtiyo kala in uu adigu laab ka soo baxay laakiin haddana xanuunkaas sida hay'adda ururweynaha caafimaadka xoolaha adduunka xayawaanka uu aaminsan yahay uu cadeeyay uu ku dhici karaa xoolaha xayawaanka gudaha iyo xoolaha ilaa 13 nooc xayawaan ka midna uu ku dhacay uu ku dhacay uu ku dhacay waad oo test baa laga qaaday in sanka laga qaado dhowr test baa adigu swab test mid la yiraahdo rectal test mid la yiraahdo rectal swab test mid kale oo la yiraahdo adigu dhowr test baa laga qaadaa si loo 3 test ee lagu ogaan karo iyo inay calaamadihi muujiyaan sida dadku u muujiyaan calaamadaha oo kale ay xayawaanku u muujiyaan quficiyo kale xumadii oo kale ay yeelanaya xayawaankaas waana dhawaanna waxa qaarkood waxay soo saareen vaccine ama in laga hortagi karo xayawaankan xanuunkan dadku markuu qof qabo wuxuu ugu gudbin karaa xayawaanka inuu la sameeyo contact ka ag dhawaado oo qof ama haya ama uu ku dhacay markuu xayawaanka u dhawaado gaar ahaan xayawaanada la cadeeyay inuu ku dhacay bisadaha eeyda libaaxa bahalkan la yiraahdo harimacadka bahalkan la yiraahdo Allahumma salli xayawaanka loo yaqaano shabeelka uu Aasiya iyo kan kale uu ku dhacay deerada oo iyadana Mareykanka suuyo meelaha kamid ah meelaha lagu hayo xayawaanka laga helay inuu iyadana ku dhacay marka xayawaanaadka ku dhacay sidee loo dhaqmay si dadka la karantiinaya sidee loo dhaqmay hortay qoloy waxa requirement waxa talada ugu fiican ay soo jeediyaan xarunta dhexe ka hortagga iyo xakamaynta xanuunada CDC ee Mareykanka ku taal waxay ku taliyaan in xayawaanka in karantiin lagu sameeyo loo dhawaan iyo in adigu diet fiican u helo hadii calaf fiican u helo oo meelna lagu ilaaliyo inuu qaato inuu macnaha la tacaalo ka soo kabto ee dhici karta marka laga hadlayo talaalka iyo balse isaga isu waafaqayaan xayawaanka la talaalaya oo soo vaccine sida dadku vaccine isu leeyihiin oo ay xayawaanaadkuna leeyahay dadka kale in iyagoo vaccine u leeyahay qaato oo laga daweyn karo xanuunka marka ku dhaca ama laga hortagi karo oo lagu la